ciidamada new booliska waxaan ku dhiirigelinayaa dadkooda inay u halgamaan. kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa halkan wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga waxa imaanta u yis 2 daqiiqo oo ka mid ah waqtigooda ciidanka deegaanka Soomaalida iyaga oo taageero u muujinaya xalay un bay ahayd markii xafiiska warfaafinta ee deegaanka Soomaalida uu soo saaray warmurtiyada ay ku sheegayaan in dadka ku nool deegaanka Soomaalida guud ahaan 2 daqiiqo waqtigooda ka mid ah u istaagaan ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalida. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan waraysi la yeelanay ayaa noogu jawaabay. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maslax Axmed Maxamed ka mid ah dhalinyarada magaalada Jigjiga maanta halkan waxaan imiday oo sheenayso uga imiday inaan 2 daqiiqo oo waqtigeeda ka mid ah inaan ku dhaho waan maasantii Lee Police mar walbana waan leenahay inta ay ka badan oo inaga budin geesiyaasha Lee Police. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa Cabdiwahaab Xuseen waxaan ka mid ahay dhalinyarta wax ka baratay magaalada Jigjiga gaar ahaan jaamacadaha aad iyo aad ayaan u taageersanay ciidanka xoogga gaarka ah hiili hoob oo la garab taaganahay shacabkana waxaan leeyahay hala garab istaago waa ciidanka kaliya inuu leenahay inagu military laakiin naga waa ciidanka xoogga gaarka ha guuleystaan mar kasta waan leeyahay waxaan ay sugro maqtal magaalada Jigjiga ayaan u dhashay aniga gobolka Itoobiya waxaan leeyahay ciidamada new booliska oo walaalada dalkiina dadkiina u halgama cadawgana soo galeen soo weerareen waxaan leeyahay Soomaaliya baabiyaan Soomaaliya inagii eber ka dhigaan arrinta Soomaaliya aan kula hadlayo Soomaaliya hadda 4 sano ku noolaa Soomaaliya baabiyaan ka dhigaan ciidamada new booliska waxaan ku dhiirigelinayaa dadkooda inay u halgamaan ciidooda inay u halgamaan nolol iyo geeri qofkii dhintay iyo qofkii noolba waxaan la dadkooda inay u halgamaan haddaad gobonnimo iyo ku dhimato iyo ii sheegay iyo geesinimo oo dadkaagu u halgamayo waa wax fiican weeyaan. waxa ka mid ah dhalinyarada magaalada Jigjiga waxaan leeyahay ciidankii new booliska markaas aan haleystaan waxaan leeyahay ciidankii new booliska mar walba sumataan waxaanu leenahay ciidanka gaarka ee dawladeenka Soomaaliyeed waqti waliba aan garab taaganahay waxaanu leenahay shacabka waxaanu ka codsanaynaa inay waqti waliba garabkooda taagnaadaan marka waxaan leeyahay ilaahay garabkooda ha gala. Cabdiruus Xaad Gool MMTV Jigjiga.